anigoo ah Jaamac Xasan Khaliif kuna hadlaya shacabka ummadda Soomaaliyeed wanaaga jecel guud ahaan gaar ahaan ismaamulka gobolada SSC Khartoum State of Somalia horta marka horeysa waxaan u mahadnaqaynaa waan rabnaa inaan mahad u jeedino go'aankii madaxweynaha dowladda federaalka uu qaatay mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ee ahaa inuu soo dhaweeyo cid kasta oo Soomaaliya oo aan wadanka kala go'goyntiisa ka shaqaynaynin arqaladna ku ahayn in la helo state Soomaaliyeed oo shaqeeya gobol walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummad Soomaaliyeed ku khalqay cid wala gobol kastaana ummadda Soomaaliyeed waxa uu geysto taariikhdu xusu doonto baa waxa laga maarmaan noqotay in la soo dhaweeyo in la soo ururiyo shacab weynaha Soomaalida kamid ah ee gobolada ku nool gobolada SSC ama Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka beeraha u dhashay oo aan qabiil gaar runtii ahayn waxay isugu meedan Taleex magaal taariikheedka ummadda Soomaaliyeed taariikhda ku leh Taleex ee fadhiga u ahaan daraawiishtii ka soo qayb qaatay halkii ummadda Soomaaliyeed dadkaasi waxay ka wada hadleen waxay ahayd maslaxadda dadka deegaanada degan oo bariyahan in badan u muuqday inayan ka talin karin aayahooda runtii marka la sii qeexana aan anagu ku macnaynay inayn warlord iyo dagaal ogana yeelan Soomaalidana cadawgooda ayaan waxba u doonan intaasaad moodaa xoogaa inay u muuqatay dib u dhac ku yimaado oo waliba ay noqotay xoogaa marka arinta waxa laga fursan waayay in la isu keeno la wada hadal siiyo saasoo ahaa saldhiga shirka Taleex nasiib wanaag waa soo gabagaboobay waxaan oran karaa siyaasad kasta iyo cid kasta oo faraha lagu fiiqo si kasta iyo meel kasta oo la maro waxaan ka raacaynaa muhiimadda iyo shacabku markii ay hadleen waxay ku hadleen shacabkaasi waxay wataan calanka Soomaaliya waxay ogol yihiin Soomaaliya inaan la kala goynin cid ay duulaan ku yihiin ma jirto Puntland bayn duulaan ku ahayn shacabkayga baa degan Somaliland bayn duulaan gaar ku ahayn waa dad Soomaaliyeed oo gobolada waqooyi gobolada la isku yiraahdo 6 qabiil baa deganaa ama 5 qabiilka la yiraahdo waa la magacaabi kara dhimale qabiilka goboladan hadda SSC degani Ingiriiska wax xishiis lama ay gelin haddii la gelina ma aqoonsanaan karaan runtii xuduud beenaadka gumaysigu sameeyay marka laakiin waxaan ognahay oo aqoonsanahay oo jecelahay in la noolaano si nabadgelyo ku jirto gobolada waqooyi haddii ay si xaqooda ka timid inay dadkii Soomaaliyeed ku laayaan Soomaali baa tihiin waxaan rabnaa in aan u sheegno ummadda Soomaalida cid kale oo aan kaga raadayna saboodna ma jirto Soomaali baanu nahay Soomaali baanu ahayn Soomaali duulaan kuma nihin dawladda dhaxan taageersanahay dadkii Soomaaliyeed istaagay ee ismaamulaan taageersanahay waa soo dhaweynaa waxay la tahay warkaasi inuu cad yahay cid aan duulaan ku nahay ma jirto waana waxaan ku celeynaa Garowe iyo Laascaanood xal sameyn mayno buuhood iyo gaalkacayr xal sameyn mayno Hargeysa iyo Laascaanood xal sameyn mayno ninkii xad sameynaysa jirta waxaan rabnaa oo kale in xusno markii madaxweynaha dowladda dhexe oo ummadda Soomaaliyeed goboladaas yiraahdeen waxaan taageersanaa dowladda dhexe wuxuu yiri waxaan siiyay kalsooni inay Soomaali ka mid yihiin dowladda dhexe taageersan yihiin waana ugu mahadnaqnay waana ku celeynaa mar labaad waxaase soo baxaya oo la yaab leh in wasiirka gaashaandhigga ee dowladda dhexe uu yiraahdo ka hadlo inuu u taageero macnaha goonistaag gobol Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka go'aya waxaan codsanaynaa faraynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto si edeb iyo Soomaalinimo ku dheehan tahay kalsooni ku dheehan tahay haday dacwo qabaan inay Soomaaliya la hadlaan laakiin ayan noqonin qof Soomaalida dhexdeeda ku jira cid kale loo shaqaynaya waxaanu cambaaraynaynaa cid kasta oo isku dayda inay gacan siiso kala qaybsiga iyo googa wadanka Soomaaliya raali kama nihin
waanu u soo dagaalanay Soomaalida guusha kama aanaa ka sheegan mayno Soomaali baanu cid aanu marti uga ma jirto waxaanu qiraynaa oo aanu cadeynaynaa Soomaalidu meel kasto ay joogto inay taageero ballaaran siiyeen sidii Soomaalida la isu keenin lahaa waxaanu rabnaa marka waxa weeye maanta uu ku saabsan yahay Brest-Liskani inaanu xusno waxyaabaha socda ummadda Soomaalida u sheegno xusnana kana hadallo waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee ummadda Soomaalida dad ku jira wala madaxi ku hadlayaan waxaan codsanaynaa in arinta la tixgeliyo qof kasta oo Soomaaliyiina ay tahay waajib muqaddas ah in aan Soomaaliya la googoyn mid googooyay oo yiri Soomaaliya waa ka go'ay iyo mid Soomaaliya curaad u haysta oo leh hadii aan waxa anigu helin Soomaaliya ma dareenayo man caraalina kama yihiin ay Soomaaliya soo noqoto labada uma dhaxayn karayna aan ka xumahay Soomaalidu dadka Soomaalida u shaqeeya inay garan waayaan runtii meesha wax ka oranayaan waxaan rajaynayaa maamulada iyo degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya arrimaha gudaha shaqo ku lahaa sida la yaqaanay beriyahan Soomaalida siyaasadeedu boga ka raran tahay anigu ma garan karo waa maqlaynaa warka madaxweynuhuna waa hadlay waa taageeray Soomaaliduna waa soo dhaweysay wixii waa la siyaasadayn karaa laakiin waxaan rajaynayaa in Soomaalidu garato inaan siyaasaddan badan ugu jirin Soomaalida oo wax la murgiya ugu jirin arinta waa maqlaynaa laakiin waxaan oran karnaa waa wax lagu degdegay aan laga fiirsan way waana runtii waxaan codsanaynaa in qofkii in arinta ay ka fiirsadaan oo waliba ninka odaga wasiirka beeraha weeyaa la igu yiri anu ma aqaano laakiin warkan maqlayaa saas weeye ama Puntland ha ahaato ama Somaliland ha ahaato ama Khaatumo ha ahaato ma dhici doonto ummadana wanaag uma aha xal uma aha Soomaaliyeed in Soomaaliya la googooyo qof ku gorgortamo qofku doono ha ahaado meesha doono ha u dhasho intaas aan rabnaa in ummadda u sheegno waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Soomaalidu waxay u baahan tahay in halka la iska caayo waa ka xishoonayna in faraha la isku fiiqfiiqo ina la xunta in cadow Soomaaliya loo aado cadow Soomaaliyeed hub laga soo qaato oo Soomaalida lagu laayo waa ka xishoonayna taana diyaar uma leeyahay sameeyno Soomaalidu inay miirsato aqliyeysato dib isugu laabato intaas ka badan kuma jiri karno xarbul ahli iyo dawlad la'aan wixii aynu haysana dhoobdhoobanno qofkii far dheeraatana Soomaalidu qabato ka hadasho Khaatumo salkeedu waa sida wax magac jiri jiray way gol Khaatumo Soomaalidu waa taqaanaa qabiilooyin Soomaaliyeed baa isugu yimid isku raacay dawlad Soomaaliyeed raadiyay ka shaqeeyay haddana magacaas la qaato gobolada laga qaatay waxayna u shaqeynayaan Soomaaliya oo dhan qof kasta oo Soomaaliya oo jecel Hargeysa inay noqoto caasimadda labaad sidii hore xamarna caasimadda Soomaaliya noqoto waxaan qabaa inuu arinta taageero soo dhaweeyo wax kale oo laga doonayaan ma jirto iyo wax kale iyo ujeedo kale laga leeyahay runtii waana arin Soomaaliyeed arin meel kale loo wadana maaha waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo ummadda Soomaalida u sheegno inaysan jirin inaan cidna ku tuugsanaynin cid Soomaaliyeedna aanan duulaan ku ahayn laakiin waxaan rabnaa dadka taariikhda noocaas leh ee dibsanaya in Soomaaliya la googooyo inaanu ururino Soomaalida kalena ay taageerto intaas weeye muhiimadda ismaamul Soomaalida ka madax bannaan maaha mid kala googoynayna maaha waladeeda waqooyi waxaanu mar labaad ku celeynaa inay ka baxaan gobolada ay joogaan ee ay sida khasabka ku joogaan in badan baan ku celinay waxaanu marti uga nahay erga uga nahay culimada gobolada waqooyi degan odayaasha isimada inay waansamaan dadkooda la hadlaan Soomaalidu dagaal uma baahna waana dhibaysaa inaan Soomaalida layno waana dhibaysaa inaan ka shaqeyno Soomaalidu inay kala fogaato wadanka laba kala leh waxaanu ka codsanaynaa dadkaasi inay is arkeen baan u sheegaynaa isu yimaadeen tashadeen taladoodana maanta cid looga tago ay leedahay odayaal bay leedahay gole madaxweynayaal ah wasiiray leedahay odayaal dhaqameed u taliya leedahay kuwaas lagala xiriiraya intaas aan rabnaa codsiga ah hadii codsigu dhamaado in badan baan ku celinay samirku waa dhamaanaya dulqaadkuna waa dhamaanaya dadka iyo ciidamada aad ku hayso ee aad isku leenaysana ka waanto Soomaaliland
runtii waa bilow waa fayskii koowaad ama waa wejigii koowaad baan odhan karaa dadku inay isu yimaadeen wax isku raaceen go'aanka inay samaystaan maamul ay isku ururiyaan kana qayb noqdaan Soomaalida xalkeeda golaha deegaanada iyo waxaas xilli baa loo qabtay insha Allah waa laga shaqeynaya waa lagu jiraa hadda waxaan awood la saaray waxay ahayd in sidii bal amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo bal macnaha hawlahaas hadda ahaa wajiga koowaad hay'adaha dawladda ama maamulka laamaheeda waa laga shaqeynaya waan la guda jiraa intay leeyihiin si fiican bay runtii u socdaan